bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee dafaha dunida inagala socda. halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaana weli bartanka kaga jirnaa bishii barakada iyo khayraadka iyo fadliga badneed ee Ramadaan. waxaana inoo socda barnaamijyadii taxanaha ahayd aan idinkugu talagalnay inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. haddaba maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee qisadii mucjisada ahayd ee muujinaysay faa'iidada fadliga khayrka ajirka iyo xasanaadka dhexeegaga bisha barakaysan ee Ramadaan ee ay tahay in aan ka faa'iidaysano. nabiga sallallahu alayhi wasallam oo u fasirayo sababta ay suurtagal ku noqotay in labada nin midkii caadiga u geeriyooday isagoo weliba sanad ka dambeeyay kii shahiida ee dagaalka jihaadka ah ku nafwaayay inuu jannada kaga hormaro midkii caadiga u dhintay weliba muddo sanad ah kadib, ayaa waxa uu ku yiri Talha bin Ubaydillah, miyuusan soomin gadaashii Ramadaan oo miyuusan dukan 6,000 oo rakacadood iyo intaa oo salaadood oo sunno ah iyo intaa oo cibaadooyin ah. waxa uu yiri sallallahu alayhi wasallam sababta uu jannada saxaabigii dambeeyay uga hormaray inay tahay fursadaha xagga cibaadaysiga ah ee soo maray darteed. waxa uuna tilmaamay fursadaha kuwa ugu waaweyn inay ka mid yihiin Ramadaankii uu soomay iyo salaado waajib iyo sunno isugu jiray ee uu dukaday. arrintaa waxa ay nagu baraarujinaysaa qiimaha weyn ee soonka Ramadaanku leeyahay iyo nasiibka uu leeyahay qofka loo dheereeyo cimriga ugana faa'iidaysto cibaadada iyo acmaasha wanaagsan ee dhexeegaga bisha barakaysan ee Ramadaan. waxaan Ilaah ka baryaynaa inuu cimrigeena dheereeyo, camalkeenana uu ka dhigo mid khayr iyo barakaad iyo ikhlaas ah. waxaana Allah subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa inuu bishaan Ramadaan ina waafajiyo dhammaan acmaasha kuwooda ugu wanaagsan, ajirkooda iyo xasanaadkoodana uu nagu kaladaysto. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم آمين. halkani waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Nuur Xasan Shiine.